انت كدب waxaan rabaa inaan u gudbo abwaan hal abuur Cabdiqafaar Ciise buugan waxa ku jirta suugaan labada qayboodna waan sheegnay wuxuu leeyahay hal abuur farshaxan buuga haddaan tusaale u soo qaato dhacdadan hadda halkan ka dhacaysa inteena haddii laynaga waraysto la yiraahdo maxaa dhacay maanta waxa suuragal ah dadka qaarkood wax inoo muuqaneen inay u muuqdaan waxa inoo muuqaneen inay u muuqdaan oo ay si aad u farshaxanaysan u soo bandhigi karaan dadka qaarkoodna halkaas la sugu yimid hebel baa hadlay buugaas la soo bandhigay inta ma dhaafi karaan marka farshaxanka iyo hal abuurku wuxuu ka muuqanayaa buuga sida la sheegay waana midka uu qoraagu leeyahay oo aan ugana mahadcelinayno kuna bogaadinayno abwaan soo dhawow waxaad ka mid ahayd hal abuurka Soomaaliyeed dabcan welina waa ku jirtaa riwaayado iyo heeso badan iyo oo ahaad xilligii waliba ugu fiicnaa ayaad qayb ka soo ahayd oo wax ka soo aliftay dadku inta badan ma yaqaanaan heesta waxay u yaqaanaan oo kaliya qofka qaada laakiin waxaa jira qof qaaday qof baa ereyada uu qaadayo soo alifay qof baa laxanka u sameeyay oo shaqo aad u badan ka qabtay qofna muusigu u garaacay marka laakiin dadku waxay u yaqaanaan oo kaliya qofka qaaday marka abwaanku dadkaas ka mid yahay dadkii hal abuurka fiican lahaa ee saalifay buugan wada akhrisay abwaan qaybta suugaanta markaynu aadno dhanka tixdana oo ka mid yihiin geeraarada iyo guuxa heesaha iyo lagu sameeyo dabcan marka aad fiirisid buugan maxaad ku qiimeyn lahayd suugaanta ku jirta nuxurkooda xilliga la qoray oo maaragtay xilligan dambe oo dadku ay aad u dhaliilaan suugaantu inaysan sidii hore ahayn Soomaaligii uu maaragtay noqday wax laga sii socdo marka ku qiimeysid marka xilligaad heesaha curinaysay iyo xilligan suugaanta buugan ku jirta maxaad nooga soo koobi lahayd adoo maanta soo dhawow magaca markaad fiirisid godob iyo geeri maxay tahay geeridu waa laba nooc waxa la yiraahdaa bas iyo bir qofna waa qof la dilay oo ama xabad lagu dhiftay ama qofna waa qoftii alla u tiri marka haddii ay meeshii timaado geeri bir keentay waxa imaanaysa godob waxa Soomaali kharibina waa godob Allah naxariisani loo nashay candhuux baa waxa la geel laga dhacay marka geeli laga dhacay buu nimankii u ergooday marka gabay dheer buu tiri laakiin waxaan ka xusuustaa godobtayda lama haysan karo maalin gelinkeeda ayadana hagaran waa ina geela igu siiyo oo macnaheedu yahay yani geel gardaraad iga wadataan marka gardar haday timaadana maxaa imaanaya dagaal iyo dhibaato waxa kaloo yiri kibir marka waxa jira isagoo nin la oran jiray Ismaaciil Mire oo gabay dheer ka tiriyo wada example yani tusaale ah Soomaalida gabay waxa la yiraahdaa ragu kibirka waa lagu kufaa ka hal loo ogaado marka ana waxaan ugu jeclaa nin la yiraahdaa aduu xalaabay caruurba wiilal badan buu lahaa sida buuga ninka uu sheegayo kale marka wiilkiisa baa nin dilay markuu ninkii dilay reer tolkiis maktiibay soo ururiyeen waxa la yiri hashi idinka idinku soo aaday keena markaas wuxuu yiraahdaa oo haddaad ma ka bixinaysa maxaad u dilaysaa adduunka saciil kuma arag ma uurka hooyada baa lagu ciilay dagaal baa dhacay asaga iyo caruurtiisiiba gambaa laga dhigay marka gabaygu wuxuu leeyahay kalaan ku lahaa ina goleerka hay gadaashii karkaasiba ma joogeen hadduu keeno tuludii baa lacad kaliyaha kuma jireen ka uu quursaday yani Soomaaligu reer buu isku hadlaynaya laakiin waxa laga yaabaa adigoo si walba maaragtay u dhaama asaga inuu kugu gardaroodo ama ku dilo ama wuxuu kugu sameeyo marka wuxuu leeyahay ragu kibirka waa lagu kufaa ka hal loo ogaado marka anigu haddaan xataa buuga soo akhrin lahaa umalayn ma inaan idin sheegi lahaa sababtoo waxa way haddaan inta anigu akhriyo fahamkaygii iyo garashadeeda idin sheego waxay noqonaysaa cunno inta qof calaliyay afka kugu geliyo dhacaankii lagala baxay marka waxa u baahan tihiin buuga inaynu wada akhrino oo qof walba siduu u arko ama garashadiisu u siiso uu u fahmo oo macnaheeda uga sameeyo baamaantii abwaanku waxaan filaayay markii hore aan lahaa buuga gabayadii iyo inuu galay laakiin waxaan rabaa buuga qosooyin badan baa ku jira
qiso ka mid ah waxay tahay ninkan Kowtona walaalkiis baa jira nin la yiraahdo baa jiri jiray Bicir la yiraahdo Bicir marka Kowton buu ka weynaa adigu 10 sano dhowr 10 sano ka hor baa waxaan tilmaamayaa kibirka aadaada qisadaad ka sheekayso kale buuga ku jira marka wuxuu leeyahay ninka Bicir la yiraahdo wiilkiisa baa laga soo orgoonaya waxa la leeyahay wiilkaasi gabdhu af xumeeyay reerkii gabdhaha baa u imaanaya waxay leeyihiin nimayo inaan naga garbaxdaan ma rabnaa wuxuu leeyahay ii cadeeya wiilkaaga noocaasa galay gabdhaha aflagaadada u geysay wuxuu leeyahay bal asagii baan raadinayaa mogto wiilkii uu cidiraya markuu u yimaado leeyahay warwarkaasi ma jiraan aaba waa jiraa buu leeyahay markuu yiraahdo aaba waa jiraa wuxuu leeyahay war anigu wax ma ku sheegaa waligay aflagaado gogol uma fariisan anigu gogol waxaan dhiig baan gogol u fariisaa marka waa inaad gabadha la sheegayo uu aflagaadeeyay aad la leeyahay madaxeeda ii keen markaasaan gogol fariisan karaa mogto wiilkii intuu ordu gabadhii soo dilaya oo madaxeeda odaga u keenaya markuu u keeno ree cilihii wuxuu leeyahay bal gogoshii noo qabta maanta mogto waayo wuxuu dilay gabadhii meesha awal aflagaada hadda reerka marka qoyskii gabadhu markay waayaabay markay arkaan bay waxay leeyihiin war ninkan uu orgoonay oo aflagaada gabadhii haday dileen kadib maxaa noo tala mogto talada kadib waxa go'aan lagu gaarayaa asaga iyo dadkiisaba in la laayo halkaas dagaalku ka bilaabanaya odagii meeshaas lagu dilayaa Bicir markii la dilo xilligaas marka maansadu guushu markay timaado maansa raaci jiday oo waa in lagu dulgeeraaro meydka ama buuga meelo kamid ah meyd baa lagu dulgeeraaraya marka nin oday oo gabya ah xilligaas jiray baa marka ninkii kibirkiisu xusaya gabay dheer buu marka tiri laakiin waxa kamid ah hadii kibir iyo isqaadqaad nin raga lagu qiimeeyo oo qaladka iyo xumaantu falana qoor ku noqonayo Bicir baan bilaawuhu qalbiga qudha ka gooyeene waa tuu sidii qaalin jabay qarqariyada u yiin oo qoomamayntii ku yiri qadafkii waan eeday jabkii qooraleexyada ku dhacay waa qiso yaabe qaxar iyo waxay galabsadeen qoomamayaci odayga halkaas waxa ku dhacaya kibirkii gabadhu madax dilay gabaygaas ku baxaya marka isla ninka buuga ka ah 12 sano soo kacay oo la yiraahdo Kowton marka laga cisho wiilkan madiga ah iyo labada gabdhood oo dhacayo oo la hor istaago oo gabdhihii uu dhacay buu reerka marka reerkiibu asaguna sidaas oo kale ugu wuxuu muujinayaa heerku ka gaaray kibirka iyo qooqa moogta maansadiisa marka waxa la yiraahdo wuxuu leeyahay may way badan yihiin laakiin tan waxaan tilmaamayaa sida loo adeegsado qabyaaladda moogta Soomaali arag ninkaasi maanta rag iyo marka garbahaaga ku aragtid iyo xoolo waxaad aaminsan tahay cid kaaba saraysa inaysan jirin laakiin waxa ay ku dhaxalsiin doonaan baad arkaysaa marka wuxuu leeyahay oo buugana labadaas maansadaana sal u ah waxa uu leeyahay adduunkan ku noolnahay aadmigu intuu yahay hadii loo abtiriyo miyuu inana dheeri wuxuu sheegayaa adduunkan ma inaysan dad ay la mid aysan jirin mise ayra foofta Kowton awr la dheeri mise adin la qaada abkay loogu faanaa ilaa aamanuudii iyo shalo ogaalkeen aabayaashiin iyo odayo joogeen bahduyay itaalkeed arligan ku daaqaan mamadiga ilaahay ehelkaba u diidad amaanteedii siisay wiilkii yaraa buu tilmaamaya oo meesha fadhiya mogta kibirka marka wuxuu tusahayaa reerkan iyo qabaa'ilkanna inuu asaga ku dhisan yahay wiilku waa u jawaabaya oo garasho xumadaasuu tilmaamaya maansadaas wiilku jawaabta u ah wuxuu ku soo gabagabaynayaa waa asagana madigana guntaa tiri inuu guudka saarto iyo inaad adil la guudhaa labada mid bay geli gulay
waxaan rabaa ereyada inaan soo ururino oo maaragtay kelmadaheennii sida ka muuqanaysa buuggu inuu nuxur badan xambaarsan yahay. waxyaabaha aan nuxurka xambaarsanayn waxaa lagu gartaa buuq iyo sawaxan bay leeyihiin, laakiin waxa nuxurka xambaarsan laba arrimoodba waa leeyahay. kow, horta jawiga iyo meeshu aad bay u degtaa maadaama wax macno leh laga hadlayo. mid kalena waa leeyahayo gadaal baa qofku ka soo maaxdaa. marka hore oo dhan waxaa laga yaabaa si qabow inuu ku bilowdo, marka waad dareemi kartaan ereyada iyo kelmadihii la yiri gadaal baa laga soo maaxanayay oo qofku uu ka soo karaar qaadanayay. nuxurka ayayna ka markhaati kacaysaa. waxaan rabaa intaan qoraaga kelmadiisa ugu dambaysa aan ku soo gabagabayn laba daqiiqo ama ka yar haddii aad nooga soo ururin kartaan, haddii aad wax ka tagteen waad ku dari lahaydeen. abwaan cabdiqafaar, maxaad oran lahayd gunaanadka? waxaana la yidhi qofku haddaanu aqoon meeshuu ka yimid meeshuu u socdo ma garan karo. marka waxay ku tusaysaa dhaqankeennii inkastuusan dee wax qoraal oo u dhacday ahayn ay tahay ninkan iyo awaalkiisa, haddana waxaad mooddaa inaan weli wax weynu iska keen bedelin. inta hadda buuggu sheegayo aan weli qabkii iyo kibirkii iyo reerkii iyo aan weli taagannahay, anaan horumar gaarin sida adduunyada kaleeto. marka unsaan u arkaan waxa waa taariikh dhaqameed. marka waxaad ogaanaysaa waagaas oo darastaasi sheegtay meeshaynu joognay iyo maanta meeshaynu marayno. waxaad moodaaba inaynu dib u guurnay hadda, hore inaanu soconnay iska daayay. intaas aan odhan lahaa. ummadaha horumaray waxay ku horumaraan waa suugaanta. suugaantu buuggan wuxuu ku bilaabmayaa ummad jiritaankeeda waxaa ka mas-uula dhaqankeeda. dhaqanka ummadahana waxaa lagu badbaadiyaa ama lagu hayaa lagu kaydiyaa suugaanteeda. marka maalan markaan buugga akhriyayay waxaa igu soo dhacayay qoraalyaa kaleetaan barbar dhigayay. qoraageenaan weyn ruushka waxaa jira qoraayaa la yidhaahdo Tolstoy iyo Dostoevsky iyo oo qoray waxa la yidhaahdo Crime and Punishment, buugaagta ugu caansan, War and Peace, maxaa la yidhaahdaa and so on. buugaagtaasi marka waxay ka hadlayeen themeska ama mawduucyada buuggani uu ka hadlayo kaleeto. marka Muxyidiin waa Tolstoygeeni iyo Dostoevsky waay. kuwaasna waa siyaasiyiintooda iyo mujtamacooda oo dhan waa soo daliishadaan, waa kuwa dhaqankooda horumariya. waxaa jirta gabar qoraa ah oo af carabiga wax ku qorto Algeerian ah oo la yiraahdo qofkii af carabiga wax ku akhriya buugaagteeda 20 luqadood ka badan baa lagu tarjumay. Axlaam Istiqaani baa la yiraahdaa iyadana. buugaagay qortay buug kamida oo buug la yiraahdo Daakiratul Jasad iyo Caabir Sariir iyo iyadana sidaas oo kale to mawaadiicda uu qoraageenu ka sheekaynayo ama tilmaamayo ayay tilmaamaysaa. macnaha nuxurka halka ku jira waa mid universal ah, waa mid waqti kasta inkastoo uu mujtamac gaar iyo waqti gaar ah ku saameysnaa iyo setting gaar ah, waa mid laakiin message-ku uu yahay mid waara oo mar kasta la adeegsan karo. runtii aniga la jeclaa buuggan iga haysa, marka waxaan jeclaan lahaa in dad badan oo Soomaaliyeed ay akhriyaan. saddexdayda buug aan qorayba qisooyinka ku jira qasab waddankaani qayb bay ku leeyahay. buugga Qorsimaris Kenya baasal oo ahba asaaskiisa oo dhan. buuggan kaloo doonta oo shilkii dhacay 90-koodii waa isla waddankaani ku saabsan yahay. buuggan Godob iyo Geeri isla waddankaana ku jira oo Nairobi oo xilligii 100 sano ka hor siday ahayd wiil yar oo la keenayo Soomaad arag baa ku xusan laftigeeda. marka kulamadaas dambaanan baan rajaynayaa inay fariintuuna hadday gaadho dadku ay ka weynaan doonaan. waana idin mahadcelinayaa.